leenahay waxa weeye waxa ay kamid tahay waxyaabaha ay tahay in la yimaado waxyaabaha ay tahay in lagu sifoobo waxa kamid ah walaalay inuu deeqsi noqono nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ahaa sida Abdullah ibn Abbas uu sheegayo ajwada an-nas ka dadka ugu deeqsisan buu ahaa wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan markay bisha ramadan ay soo gashana deeqsinimadiisu way si laba jibaarmi jirtay cid ka deeqsisan nabiga sallallahu alayhi wasallam ma jirin deeqsinimadaas aynu u baahannahay inaynu dadka jaarkeena aynu ogaano xilli adag baa lagu jiraa haddii macallimiin lahaay haddii shaqooyin kala duwan la haystayba shaqooyinkii badan oo kamid dadka ay ka xidhan yihiin dadku ay baahan yihiin waxba aan haysanin waxaanu u baahannahay ka xaafad ahaan iyo ka shakhsi ahaanba qof walba inaad suxil saarto bal inaad ogaato dariskaaga iyo reerka kugu xigay waxa ay ku sugan yihiin iyo xaaladda ay ku sugan yihiin inaad ogaato minoma haboona mana wanaagsana sifo qofka muslimka ay u leeyahayna maaha inaad dheregto saddexda waqti aad cuntooyinka ugu wacan aad cunto reerka kugu xigaana ay gaajaysan yihiin wallahi wax ka farxad badan ma jirto marka aad qof walaalkaayo muslim oo miskiin oo waxba haysanin aad kaga farxiso oo aad qalbigiisa aad geliso farxad wajigiisa muusood aad geliso wax ka wanaagsan ma jiro amal la qabtana waxa ugu wanaagsan dadka masaakiinta oo laga farxiyo sallam waxa uu leeyahay ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas ilaahay dadka uu agtiisa ugu jecel yahay waxa kamida kuwa dadka ugu anfac badan anfacaasna waxaynu ka bilaabi karnaa dariskaaga iyo qaraabadaada in la ogaado haddana dariskaaga aanad ogaan karin qaraabadaada ogow cidda kuugu xaqlihi waa qaraabadaada waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay ehelkoodu ballaaran yahay dad badan oo baahan ay ku jiraan waxaad awoodo gaarsiin واجبنا maaha inaad waxaad haysato oo dhan baan masaakiinta ku wareejisay laakiin waajibka ku saaran waxa uu ilaahay kugu arsaaqay wax kamida inaad wax ka bixiso waliba xilligan ayna xanuunada ku jirnana xilligan ayna xanuunada iyo dhibaatooyinka lagu jirana sadaqadu waxay ka ilaalinaysaa meel xun inaad ku dhacdo xanuun xun inuu ku haleelo mawtul qafla inuu kugu dhaco sida uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay qodobka la iyo tobnaad walaalayaal waxaan isku dhiirigelinaa inaan nafeena xisaabino waa inuu nafteena la xisaabtano leenahay waxa weeye waxa ay kamid tahay waxyaabaha ay tahay in la yimaado waxyaabaha ay tahay in lagu sifoobo waxa kamid ah walaalayaal inuu deeqsi